madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo su'aaliyo gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Ali Saciid Fiqi iyo qasriga madaxtooyada magaalo xeebeedka Baraawe kulanka lagu weeldaday ururada dhalinyarada iyo haweenka ee magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed kulanka oo ay dhowr saacadood socday iyo ku qaybgalayaalka ma ku hadaleena baahiyo haysada iyo sidoo ku goonta ku shaqeeyo ka horumarka iyo nabadda magaalo xeebeedka Baraawe madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo ku qaybgalayaalka kulanka ku mahadnaqay sidoo ku goonta ku shaqeeyo ka horumarka magaalada maynu soo xusay kan dowladahan intii sadonka dhow iyo walanku gobada doonaan cabashooyinka iyo gudbiyeen sugana tilmaamay intii qayb muuqato lagu sii doono dhalinyarada iyo haweenka dhisowga golaha deegaanka degmada Baraawe oo meel gabagabay ee marahayta ما شاء الله كلن كأد مهم وها مدحوينا هنا مدحوين Cabdicasiis وانين مرول بقرب تاجن قبل هرير Koonfur Galbeed حدنا قبل هرير Baraawe بلنقاد في عنو نوسمي وإن أورك محلي هذا إيش كوينكو إكتاب قادم دونان ولا دجان كدجمدا لبانا ده صوص عضو محلي هذا إيش دولة جولات Koonfur Galbeed يسوي حلي دونتو إن بقولكي بصدقكم أن حقيقة دونه هدو إلهي نفتن نوسم إن شاء الله ومدحوينه ده مدحوينا دلنيرادي هواينكو وبسيل إن محلي ده حقوق ده هلان أنا نقعد بنوفر أحسن هاي إن حقوق ده إن نوبل قاضي إن هواينكو شغابور وسمان دونه إن بسجدة جار كهواينك إليه مقالة اللقب عندنا لبضين دونه هدو إلهي راحدو محمد علي إبراهيم بندو agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo kulamadaas muhiimadii warbaahinta ku warbiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe ayaa maanta wuxuu kulan la qaatay ururada ka dhisan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan caasimadda Baraawe sida dhalinyarada guud ahaan iyo haweenka ururka ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ugu horreyn wuxuu kulan kula qaatay haweenka ka dhisan caasimadda Baraawe ayagoo warbixin guud ka siiyay xaaladda guud iyo dhismaha dowladnimada ka socda ee uu madaxweynaha qayb ka yahay mar walbana laga hirgeliyo mashaariic kala duwan degmada Baraawe sidoo kale waxay kaga mahadceliyeen madaxweyne Cabdicasiis mar walba sida uu mar walba ugu taagan yahay in kaalmaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo shaqaalaha dowladda dhan walba ay ka muuqdaan haweenka Soomaaliyeed oona runtii ay ku amaaneen madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen sidoo kale madaxweyne Cabdicasiis ayaa isaguna wax uu dhankiisa u ballan qaaday ururada haweenka ee ka dhisan caasimadda Baraawe in ay ka soo muuqan doonaan dhismaha golaha deegaanka oo dhammaan laga hirgelin doono caasimadda Baraawe oo hadda ay socoto qabanqaabadeeda iyo sidii dadkii loo kala xuli lahaa una u ballan qaaday in qayb muhiim ah ay ka noqon doonaan sidoo kale madaxweyne Cabdicasiis ayaa dhanka kale wuxuu kulan la qaatay dhalinyarada ka dhisan caasimadda Baraawe oo runtii ayaguna warbixin guud ka siiyay xaaladda caasimadda Baraawe waxay warbixintooda ayagana ay ku saleeyeen ku faraxsan yihiin in maanta loo dhagax dhigay garoon ay kubadda cagta ah ee laga hirgeliyay caasimadii ee Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay madaxweynaha ay ugu mahadceliyeen wax sanado badan la soo dhaafay ay ku tuhmayeen in laga hirgeliyo caasimadda uu maanta asoo shakhsiyan oo u gasay in laga hirgeliyo caasimadii Baraawe sportiskana waxay ku tilmaameen in ay qayb muhiim ah ka tahay isdhexgalka bulshada oo madaxweynaha mar walba uu taagan yahay in bulshada reer Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda Baraawe ay isdhexgal ay muujiyaan sidoo kale madaxweynaha wuxuu asagana dhankiisa u ballan qaaday in ay ka soo muuqan doonaan dhismaha golaha deegaanka ee ka socda caasimadda Baraawe oo runtii maalmaha soo socda la rajeynayo in lagu soo gabagabeeyo madaxweynahan wuxuu sidoo kale ku booriyay dhalinyarada ka dhisan caasimadda Baraawe in ay mar walba u istaagaan dhismaha dowladnimada ee ka socda caasimadda faahfaahintiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed magaalo xeebeedka Baraawe